هذا وعن كسر دويني إن شاء الله الشيخ إن شاء الله إنه نوفر آيات القرآن يوحي وهدي وأنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد دمان ولا هلك isku yimaaday rag iyo dumarba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaan kadib fadhi kasto oo dad islaam iskugu yimaadaan in Allah subhanahu wa ta'ala lagu xuso dhikrigiisa quraankiisa wacdigiisa waa mid waajib inagu ah. الله سبحانه وتعالى آيات قرآن حكيري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كوا علي الرسول كرهميو الله كعب صدا ستنا وعب صدا هنات إيماننا إلا إذكم مسلمين مويان مالك استوى نسكو إيماننا waxaa waajib inuu ahaa inaynu isxasuusino iskuna baraarujino taqwada Allah subhanahu wa ta'ala. suuratu al-asri Allah subhanahu wa ta'ala soo salaada asar ku dhaaranaya wuxuu yiri innal insana la fi khusr insaanka wuu khasaaray illa Allah subhanahu wa ta'ala ka soo reebay illa alladhina aamanu wa amilus salihati kuwa a'maasha wanaagsan sameeyay mooyaane kuwaasoo isku dardaarma حق الله سبحانه وتعالى يسامرك لما أنت نال والباء شغنو هدين قريها شغنو يهدين شقويك شغنو يهدي أين ودأس كوهر إيمانو أين سجارسينو حق الله سبحانه وتعالى يسامرك أنت تقوى الله سبحانه وتعالى مركان كجبحه عيدي القرآن كان آخرية يجار أهان عيدي يجوه الرئيسي سبب يكسر دكتي سبب تأثر ربعنا مركان كشاكيو sababta ay ku soo degtay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu diray saxaabi magaciisa la yiraahdo al-Harith wuxuu u diray tolkiisi wuxuu ku yiri tolkaaga u tag islaamnimada gaarsii inta islaamnimada qaadatana zaka ka soo aruuri muddadaana ku soo noqo muddo nabiga sallallahu alayhi wa sallam u qabtay al-Harith muddadii ayuu ka daahay sababta uga daahayna ay tahay in qowmkiisii intii uu la hadlayay ee uu fahamsiinayay islaamnimadii sakadiina uu ka aruurinayay ay waqtigii ay sidaas kaga dhamaatay oo waqti kale uu ku darsaday. nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu diray saxaabi al-Walid la yiraahdo wuxuu yiri orado ka wardoon wixii ku dhacay iyo waxa uu la maqan yahay saxaabi al-Harith. al-Walid intuusan magaaladii iyo qoomkii al-Harith intuusan gaarin dhaxda uu marayo shaytaan ayaa u sheekeeyay dhaxdii buu ka soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo noqday wuxuu yiri
xaarid iyo qoomkiisii sakadii way ii diideen anna waxaan ku sigtay in la ii dilo nabiga sallallahu alayhi wasallam koox buu diray kooxdii uu diray buu yiri ordo baxa kooxdii uu diray ayaa dhexda waxa kaga hor yimaaday xaarid iyo qoomkiisii oo zakadii wada ka hor yimid waxay qoladii baa waxay yiraahdeen qofkan soo xaarid ma aha haa buu yiri yaadin soo diray buu yiri xaarid baa qoladii wuxuu ku leeyahay yaadin soo diray rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam ayaa na soo diray marka maxaa doonaysaan buu yiri adaan ku soconnay sabab buu yiri marka sababtii oo sheegay waxay yiraahdeen nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku soo diray al-waliid wuxuuna yiri sakadina waa la ii diiday waana la ii diiday gaaray wallaahi inaan arkin buu yiri marka waliid wallaahi ma arkin buu yiri sidaa darteed markii ay wada noqdeen ay nabiga sallallahu alayhi wasallam u tagaan xaaridii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo hadleen wuuna u sheegay sidaa darteed Allah subhanahu wa ta'ala marka aayadan aan mid aan ku bilaabay ayuu Allah subhanahu wa ta'ala soo dejiyay ya ayyuhalladheena aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kuwa aliya rasuulka rumeeyow hadii qof xun oo faasiqa uu war idin keeno iska hubiya inta aydan dhibaato iyo fitna aydan qolada aan warba idinka hayn aad ku sameysaan kadibna aad ka shalaytoontaan waxaan idin rajaynayaa inaynu ismaqalno inaynu is-adeecno Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri ya ayyuhalladheena aamanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum kuwa Allah iyo rasuulkiisa rumeeyow Allah iyo rasuulkiisa iyo ulil amriga adeeca maanta ulil amriga waxa inoo taagan culuma inoo taagan waxa inoo taagan odayalba inoo taagan waxa marka qasab inagu diin ugu inaynu ismaqalno waxaan idin rajaynayaa inaynu ismaqalno is adeecno alla dartii subhanahu wa ta'ala midnimada Soomaaliyeed iyo midnimada kale aynu raadinayno waxa ka wada horeeya intaas oo dhan Allah subhanahu wa ta'ala inaynu raali galino inaan Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa isku dardaarno taa ayaynu ku hoos jirtaa inaynu midnimo Soomaaliyeed aynu helno Allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat al ahya'i minhum wal amwaat bi rahmatika ya arhamar rahimin haddana insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha guddiga doorashada oo isxil qaaday inay insha Allah guddigaas gudoomiyaha ay doorteen insha Allah baan ku soo dhaweynayaa marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh marka xiga waxaan idinka mahad celinaynaa ajiibida qiimaha iyo karaamada leh aad soo ajiibteen walaalayaal anaga warkayagu ma badna insha Allah Abdullaahi Kariim waxaan idinku yeernay guddi la diray baanu ahayn oo ka kooban 19 xubnood wixii aanu qabanay inaan la wadaagno wixii aanu rabno inaanu qabanano aanu inii sheegno iyo waqtiga aanu qabanayno waxaan rabnaa wixii naga dhiman oo talo iyo tusaale ah maanta waynu u dhannahay hal doorkii magaalada Burukus way joogaan hadalkayga ma rabo inaan badiyo waxay oran jireen dadku war magaalo warqad buu ku yaal insha Allah Abdullaahi Kariim wixii aanu qabanay iyo waxa noo qorshaysan waan in la wadaagi doona iyadoo documentary ah laakiin waxaan rabaa inaan hal kelmad ka horeysiyo walaalayaal waynu dareensanahay baahidayna haysa magaaladii aynu ku noolayn haddii ay shaqooyin tahay haddii guryihii tahay haddii noloshii iskuuladii ay tahay dadka ugu baahida badan baynu ka midnahay kaga bixi kari weynay shakhsiyaad xaafad wax kale dantu waxay ku jirtaa inaynu tashanno markaynu inagu wax noqono baynu dadka in la noolahayna waxaan fici doonaa diinta islaamka waxaan fici doonaa midnimada ummadan aynu wada joogno in waxtar u yeelanayna marka hadalkayga ma rabo inaan badiyo shirku waa inoo furan yahay taladiina loo baahan yahay waxaan rajaynayaa qof kasta wixii uu tala soo jeediyo insha Allah Abdullaahi Kariim waa weelaynayna waana tixgelinayna ama walaalayaal waxaan soo wadnay community fara badan midnima ma succeed garoobin marka imika waxaan dadaal iyo karti gelinay inaan tan insha Allah ka shaqaysiino marka ay ku maasanaysaa u timaadeen community wax fara badan baa naga xiran iskuulada xasbiyada hadii ruux la xidho iyo shaqooyinka
أنا هذا الكسي بدنا ود معسنتي waxaan u gudbayaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaa la isweydiinayaa ama lagu soo celceliyay guddiga marka waxaa laga yaabaa dadka inaysan maaragtay in badan oo kamid ah aysan fikrad ka haysanin macnaha guddigu muxuu yahay marka waxaan ugu talagalnay maadaama aan bulshada u yeernay bal marka inaan bal faahfaahin ka bixino guddigu muxuu yahay muxuu qabanayaa halkuu ka yimid yaa caleemo saaro guddi ka dhigay ma guddi asagoo ismagacaaba ma guddi ummad dirataya muxuu yahay macnaha inaan ka hadalno bal ummadda aan wax uga sheegno kadibna markaas aan taladiina iyo tusaalihiina dhageysano iyo su'aalihiina hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ka bilaabaynaa horta guddiga doorashada jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Brooks guddiga wuxuu ka kooban yahay ama ka koobnaa markii hore 21 xubnood wuxuu leeyahay gudoomiye aad aragteen uu ka yahay gudoomiye Mustafa uu ka yahay wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen oo walaasheen Ikraam Siraaji ay tahay oo gudoomiye ku-xigeen ka tahay xubnaha guddiga waa xubnahaas aad aragtaan gudoomiye Mustafa Ali Aadan gudoomiye ka gudoomiye ku-xigeen Ikraam Siraaji xogayaha maamulka Maxamed Faarax xogayaha maaliyadda Cabdiraxiin Jayte Sheekh Ali Mukhtaar Macallin Bashiir waa nala joogaa Sheekh Ali waa joogaa Cabdullaahi Gamaadiid Cabdirasaaq Cabdulwaahid Axmed Maxamed walaasheen Wiilo walaasheen Ifraax Ciise walaalkeen Ismaaciil Mire maanta waa cudur daartin lama joogo aadan cilmi Sheekh aadan waa joogaa Xabiibo walaasheen Xabiibo Ismaaciil walaasheen Kawsar walaasheen Faadimo Warsame walaalkeen Bishaar oo xiriiryaha inoo ah walaalkeen Abshir maanta lama joogo walaalkeen Xuseen aadan dadkaas waa xubnaha guddiga sidoo ku yimid macnaha halkuu ka yimid guddigan yaa magacaabay waxaa jirtay horaantii June ciidii maalmihii ciidda waxaan ka wada dhareegsanahay waxaa jiray dareen guud oo ahaa maamulka xoogaa habacsanaan jirtay maamulkii hore oo muddo joogay xoogaa wixii oo kala daatay inaanan muddo leys arag inaanan layska warhaynin marka dareen dadka waxaa ku wada jiray ah bal say wax u socdaan maamulkii aaway maxay tahay maaragtay habacsanaanta ayadoo dareenkaa jira waxaa dhacday in xubno ka mid ah jaaliyadda ama bulshada xubno ka mid ah baa waxay kulan aanan maaragtay hore u sii qorshaysnayn waxay isku arkeen gudoomiyaha jaaliyadda walaalkeen Yuusuf way iswareysteen waa la isxog wareystay halkay wax mareen adiga isxog wareysi kadib waxaa lagu ballamay in la is arko si looga wada hadlo maxaa la yiraahdaa halkay wax mareen iyo halkee looga soconaya halka meesha hadda la joogo iswareysigaas kadib kulankii ugu horeeyay wuxuu suuro galay 22 Juun khayr Allah ka siiyo walaalkeen Yuusuf gudoomiyaha jaaliyadda baa wuxuu ballan qaaday in maaragtay uu fadhiga marti gelin doono adiga xubno 9 xubnood ah maalinkii ugu horeysay isu timid xubnaha 9 qofood waa la iswareystay halkii wax loo dhaqaajin lahaa waxaa la isla gartay in maaragtay dadku yar yahay marka loo baahan yahay in la dad badsado oo mar kale la is arko kulankii 29 Juun buu suuro galay kulankaas 29 Juun dhacay waxaa ka soo qayb galay ilaa 25 qofood 25 qof ee kulankaas 29 Juun noo qabsoomay 25 qof ee ka soo qayb galay iswareysi iyo isxog wareysi iyo gudoomiye Yuusuf oo ka warbixiyay halkii ay wax mareen waxyaabihii ay wax ka qabsoomi waayeen ciladihii yimid adiga iswareysi iyo isxog wareysi kadib waxaa soo baxday in maaragtay xubno ilaa 13 qofood oo isxilqaan ah la magacaabay oo la yiri bal ummadda hal isugu yeero hal la is arko hal loo dad badsado bal halkii wax la marin lahaa hal la iska wareysto 13 qof si isxilqaan ay u shaqo galeen 20 July baa kulan kale loo ballamay sidoo kale mar kale walaalkeen Yuusuf halkan uga mahad celinaya wuxuu maaragtay gudoomiyaha wuxuu maaragtay si bilaash nagu martigeliyay hoolkiisa in ummadda la isugu yeero si ay ummadda Soomaaliyeed uga tashato bal aayahooda halkii wax loo wadi lahaa sida wax laga yeeli lahaa 20 July halka lagu kulmay markii la iswareystay dadkii la tala weydiiyay halkaas waxaa ka soo baxay bulshadii meesha isugu timid soo jeedin ay soo jeediyeen oo ahayd 13 qof ee kulankii hore ka soo baxday sida isxilqaanka ku soo baxay in ay maaragtay hawsha sii wadaan cidii ay u arkaan inay muhiim u tahay aqoon iyo hawl iyo maaragtay waxtarba inay wax kala qaban karto inay ummadda maaragtay bulshada reer Brooks ay doorasho gaarsiiyaan 13 qofood
sidaasaa maaragtay ay marka koowaad ku bilaabday guddiga maanta arkaysaan ee guddiga doorashada lagu magacaabay wuxuu ka bilowday 13 qof ee ahayd guddiga qabanqaabada shirka oo bulshadu ay u idmatay inay maaragtay iyagu noqdaan guddi doorasho 13 qofood wada tashi kadib adiga ilaa iyo waxa lagu soo daray 8 qofood oo kaleeto 22 qof halkaasay ka timid saasay guddi doorasho ku noqdeen guddigu wuxuu leeyahay kulamo joogto ah uu leeyahay week walba ama isbuuc walba kulan buu yeeshaa kulankii ugu horeeyay guddiga wuxuu ku doortay shirgudoonka waxaa noo ah walaalkeen Mustafa oo gudoomiyaha guddiga ah guddiga markii ugu horeysay uu fariistay maxaa la yiraahdaa wuxuu ka tashaday macnaha inuu horta helo xeer hoosaad maxaa noo xeera maxaan isku hagaynaa maxaa la yiraahdaa kulamadeenu say u soconayaan kulankiisa ugu horeeyay saas uu ahaa guddigu marka wuxuu leeyahay hadda xeer hoosaad qoran oon ugu talagalnay guddiyada dambe imaan doonana inuu dhaxal noqdo asagoo software iyo asagoo maaragtay hard copy ba ahba labadaba waa yaalaan waxaan ka soo tegey markaan hawsha bilaabaynay waxaa la iska wareystay inaan helno wax tixraaca howlihii hore u jiray haddii ay sharciyo jireen haddii meelo wax laga tixraaca ay jireen waxba maaragtay waa nasiib darro waxba ma helin marka waxaan go'aansanay intaanan wax kale aanan u gudagelin marka hore inaan ka bilowno bal in la helo wax qoran oo la tixraaco layskuna maaragtay maamulo marka waxaan ka bilownay guddiga dhexdiisa inuu helo xeer hoosaad bal see kulamadeenna say noqonayaan go'aamada see lagu gaarayaa ka soo qaybgalka kulamada soo noqonaya yaa guddoomiye noo ah hadalka see loo kala qaadanaya xeer hoosaadkaasaan samaynay xeer hoosaadkii waa guddigu waa isku raacay qayb ka mid ah soo diyaarisay waa la isku raacay waa la ansixiyey xeerkaasuu marka guddigu ku dhaqmaa qarashaadka guddiga waxaa maaragtay ayadana su'aal mudan cid walba oo meel isugu timaada ama koox walba oo ku talagasho inay wax qabato waxaa jiraya qarashaa jiraya sida maantaba aad arkaysaan hoolkan waa kiilo lacagaa la iska qaaday maxaa la yidhahdaa biyaha la cabayo waa lacag waraaqaha la daabacayo waa lacag waxaan isweydiinay qarashka halkee laga helaya markaan wada tashanay waxaa noo soo baxday ummaddii bulshada maadaama aan wax u dhisayno annagoon wax dhisin horta inaanan culays saarin ee marka hore aan jeebkeenna ka bixinno marka qarashka uu ku socday guddigu wuxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa qarash dhowr iyo 10 qof ee maaragtay haddana 22 qof ah jeebkooda ay ka baxsheen maalin kasta hawshii loo baahdo hadday ahaato in hool la kireeyo hadday ahaato in biyo la soo gado dadka la isu keenaayo hadday noqoto in waraaqa la daabaco hawshu waxay ku socotay maxaa la yidhaahdaa isxilqaankaas iyo in jeebka guddiga laga bixiyo doorashaa la qabanaya hoolal baa la kireyn doonaa marka guddigu wuxuu soo dhaweynayaa cid kasta oo diyaar u ah hawsha inay ka qayb qaadato xoog iyo xoolaba maxaa u qabsoomay guddiga markuu dhismay ilaa hadda maxaa qabsoomay waxyaabaha guddiga u qabsoomay waxaa ka mid ah dhanka sharciyada saan soo sheegay guddiga wuxuu yeeshay xeer hoosaad oo isagoo isku maamulo marka koowaad marka labaad guddigu wuxuu sameeyey habraac doorasho waxaan u malaynayaa in laydii qaybshay doorashada sida ay noqon doonto yaa codayn kara oo maaragtay cod dhiibo kara yaa murashaxa cidda isu soo sharaxda maxaa laga rabaa oo shuruud ah maxaa loo fiirinayaa waxaasoo dhan waxay ku qoran yihiin waraaqaha laydin siiyey bay ku qoran yihiin waana qaybin doonaa guruubyada ka jira magaalada waa lagu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo oo aan ugu talagalnay bal wixii inay maaragtay tixraac ay yeeshaan oo hayaacda aysan noqonin marka habraacaas doorashadana waa la sameeyey oo sharciga doorashada ah talo waa lagu dari karaa guddiyada dambe yimaado waa sii horumari karaan laakiin waxaan ugu talagalnay inay ahaato meel laga dhaqaaqo marka sharcigaasna wuu noo jiraa waxaa kaloo jira qabyo qoraal laydii qaybsha asagana ah horta maxaan ka rabnaa waxyaabaha lagu wareersan yahay ama la isweydiiyo waxaa ka mid ah community jaaliyad haddii la dhiso maxaa looga baahan yahay inay qabato hadda sideen wax u qaban karnaa uga digtoonaan karnaa inay mar kale inta aan wax ku daalno oo xoog iyo qarash iyo waqti aan gelinno haddana sidii oo kale ay noqdaan marka waxaan ka hormarinay talo badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan kulanka maanta aan joognana wuxuu qayb ka yahay la tashigaas oo waxa akhyaartan ay isugu timid in maaragtay dadka talo iyo tusaale laga weydiiyo bal wixii aan dhisi jirnay maxay nooga qaldami jireen si aysan nooga qaldaminna maxaan samaynaa maxaan qaladnoo markaan saxnaa hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale guddiga waxyaabaha uu ka shaqeeyey waxaa ka mid ah xiriirka haddii ay jiraan jaaliyadaha kale oo sida Edmonton iyo Calgary ka jiro inaan khibrad weydiino bal sidee wax ugu qabsoomeen halkay wax u marayaan sidee wax isula qaban karnaa ayadana guddiga waxyaabuhu ka shaqeeyey ka mid ahayd
qorshayaasha guddiga maxaa u qorshaysan hadda guddiga waxaa u qorshaysan in doorasho la qabto waxaana rabnaa doorashada hadduu ilaahay yidhaahdo inay noqoto doorasho xor iyo xalaal ah oo guddigaas uu ummadda u dhaxeeyo sidaa idiin sheegay xeeroosaadka guddiga uu isku maamulay guddiga uu leeyahay waxaa ka mid ahayd markii aan xeeroosaadka soo gudbinay shuruudaha xeeroosaadka waxaa ku jiray qof haddii guddigaas uu ku jiro qof murashax ah ama ehelkiisa uu murashax yahay inuusan guddiga ka tirsanaan karin si loo ilaaliyo dhexdhexaadnimada guddiga saa daraaddeed qodob aan ku darnay ah guddigaas inaysan olo ka qayb qaadan karin inaysan maaragtay qof murashaxa ehelkiisu qofka murashax yahay uusan ka qayb ahaan karin guddigaas ilaahay mahadiis ilaa haddana saasay noogu socotaa waxaana rajaynaynaa inay saas sii ahaato oo doorasho ummadda ku wada qanacdo cidda ay rabto ee iyadu u aragto inay aayaheeda iyo horumarkeeda ka talinaysana ay doorato hadduu ilaah yidhaahdo wakhtiga doorashada jadwalkeeda wakhtiga ugu horeeya taladiinna iyo tusaalihiinna markaan dhegaysanno waxbaan isleenahay hadda laakiin haddana mar walba taladiinnaan ku daraynaa markaan talada iyo tusaalaha dhegaysanno baan insha allahu soo deji doonaa soo gudbin doonaa maxaa la yidhahdaa jadwalka doorashada isuu noqon doono guddiga qorshayaashiisa waxaa ka mid a inuu sii wado wacyigelinta oo aan laga daalin dadka qaar mararka qaar waxaa laga yaabaa hadallada aan isdhahno waxaa ka mid a ama laysu sheego waxaan waa lagu soo daalay waqtiyo badanaa laysku soo dayey laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah nolosha intay socoto waxaa loo baahan yahay in la noolaadaa loo baahan yahay in hore loo socdaa loo baahan yahay marka horumarka iyo in wax la qabto iyo bini'aadamku inuu wax isku dayo wax joogsanaya ma ah marka walaalahii waxaan farayaa dhammaan dadkoo dhan iyo guddigeenna inaysan marnaba aanan quusanin nin ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyada hadal cajiibahoo wuxuu lahaa ahaa waxaan ka quustay inaan ka quusta soomaaliya marka waxaan dhammaan iskula dardaarmaynaa inaan laga quusan wacyigelinta inaan isku sheego waxbaa qaldami karaan waxbaa la samaynayaa maamul baa la dhisayaa waxbaa ka hallaabaya waxbaa u hagaagaya maamul la'aanay mar walba dhaantaa marka inaan ka quusanno inaan maxaa la yidhaahdaa aan maamul raadinno si kastoo noqotoba marka guddigu mar kasta wuxuu ka sii shaqayn doonaa inuu maaragtay ummadda ku wacyigeliyo in la helo maamul iyo jaaliyad shaqaynaysa markaan tala raadinay oo aan waraysanay maxaa la yidhaahdaa dadkii waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ahaa laba shay mid wuxuu ahaa waxaana loo sheegay dhaqaale wax kasto howl kastoo la qabto waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay in maaragtay haddii ay noqon lahayd dadka shaqaynaya wixii ay ku shaqayn lahaayeen haddii qof la caawinayo sida wixii lagu caawin lahaa haddii wax la daabacayo waraaq la daabica wixii lagu daabici lahaa haddii kulan dadka la isugu yeerayo meeshii la isugu yeeri lahaa waxaasoo dhan qarashay u baahan yihiin ummadda haddii xafiis ay qofku adeeg u soo raadsado oo uu ciddii caawin lahayd ugu soo hagaago haddii loo baahdo qarashay u baahan tahay guddigu si qarashkaas iyo loo helo dadaalu ka wadaa aragtiya guddi maaliyadeedaa jiro in maaragtay guddiga maamulka imaan doono inay sidaasoo kale aysan ku dhicin guddigu wuxuu ka bilaabay naftiisa 21 xubnood waxay diyaar u yihiin ayagoonan murashax ahayn maamulka imaan doona aanan xubin ka ahayn keliya ay howshooda ay tahay in doorashadaas la qabto waxay diyaar u yihiin qaaraan bilo ah inay bil walba iska aruuriyaan oo jeebkooda ah ummaddana saasoo kale aan u soo jeedinaynaa cid kasta oo diyaar u ah si waxeenna aan u maalgelin hadduu ilaahay yidhaahdo sidoo kale waxyaabaha talooyinka ummadda aan ka helnay waxaa ka mid ahaa maamulada la doorto kale inay ahaayeen qof in la doorto kadibna halkaas looga haro waxyaabaha marka talada iyo markaan dhegaysanay ummaddii aan la kulmayna loo sheega waxaa ka mid ahaa inay muhiim tahay in la helo guddi marjic ah oo guddigaas la shaqeeya u dhaxeeya ummadda bulshada guud ahaan maadaama qof marka la doorto suuragal maaha bulshada magaalada oo dhan inuu qofku wada arko ama uu la wada fadhiisto marka guddi marjic ah u dhaxeeya haddii ay wax qaldamaan wax saxa oo dadka maaragtay indheergaradka iyo aqoonyahanka magaalada jooga oo rag iyo dumar leh inay guddigaa noqdaan guddigaas sidii loo heli lahaa marjica ahna guddiga waa ku tala jiraa waxaan u fadhino oo halkaan aan isugu dulqaadanayna waxa weeyaan waa dan caama oo aan u baahannahay inay noqoto mid kumiro dhal oo wax ku oola weeye inta inaga maqana insha allahu tacaala inay naga mid noqdaan baan rajaynaynaa hadalku waxa badin mayno annaga xogtanada insha allah waa naga kooban tahay xoghayntu waa in siisay xogtanadii gudoomiyuhu waa hadlay dhammaan inta de kulay warqadahana waad haysataan bal idinkana hal iyo labo qof walba insha allah asagoo waqtigiisa soo koobaya inaan siino aragtidiina aan dhageysano wixii aqliga wanaagsan aan ka qaadano waan rajaynaynaa waan soo dhawaynaynaa arrintan waxaan rabnaa in aan laga dhigin mid maanta kaliya ah ee ay noqoto
mid miri dhasha ee lala shaqeeyo qofka marka ayada ah hawsha loo dhiibay. Assalaamu calaykum. su-aashu waxa weeye sidaan u fahnay kolley mikrofoonkaan rabnaa inaan ku celiyo haddii ay isku mid noqdaan musharaxiintu yacni laba qof oo tartamaysaa isku mid noqotay ama saddex qof oo tartamaysaa isku cod keenay sidee lagu kala saarayaa maadaama ay tahay hal wareeg soo sidaa maaha waxa ku qoran warqadda hal wareeg wey qaabkee loo kala saarayaa waad mahadsantaha walaal su-aasha kale ama musharaxiinta xilligee bilaabanaya doorashada koox xilligeesa dhammaanaya 20 sano ku dhawaa magaalo aniga deganahay waxaa ka jira waad ogtihiin hadday shaqo noqoto hadday guryo noqoto sida guddiga ay sheegeen wax fara badan baa ka jiro dhammaan hal qof inta haystaa dhammaanna haysato marka waxaan rabnaa hadda burukis dadka deganaa Soomaalida ilaa 1,000 qof oo ku dhow yihiin laakiin hadda inta meesha fadhido waxaa laga yaabaa in hadda 100 ay gaarin ba hadday u bataan 150 ay noqdaan marka waxaan rabnaa fadhiga ku xigo inaan dhammaan ka soo qayb galno si aan cududanada iyo awooddanada aan u muujino waxaa kaloo ku dareynaa wax walba waa dhaqaalo inaan dhaqaalo hurno insha Allah wixii hadda ka dambeeyo oo guddiga wixii soo jeediyaan oo dhaqaalo ah inaan hurno haddaan dhaqaalo helno wax walba sameyn karnaa insha Allah marka intaasaan ku darayaa guddiga fasax weydiistay marka waa mahadsantiin jazaakallahu khayr marka hore horta waxaan rabnaa wixii aan qoranay kaliya inaydankaan ku ekayne wixii talo iyo waxaanu waa qabyo qoraal aanu inoo soo gudbinay waxaan u baahannahay talada aad u aragtaan saliim iyo wixii aad u aragtaan inay wax ku qabsoomayaan inaad noogu dartaan wixii aan anagu soo qornay kaliya aadankaan talooyin su'aalo naga weydiin sababtoo waxaan isugu kan yeernay waa talo wadaag iyo inaanu taladii dadka ku soo celinno haddaan ku socdo su'aasha walaal Cabdiraxmaan waxay ahayd guddiga marjac ayaa dhisaya waxyaalaha waxay ka mid tahay walaalayaal waynu ognahay inteena badan hadda halka joogtaa waa xanuunaya maanta waxaynu u fadhinaa kii lixaad midna ma mira dhalin waxyaalaha caqabada ku noqday waxaynu rabnaa wax badan baanu diyaarinay oo aanu haynaa waxyaalihii caqabada ku noqday aan xog ka ururinay insha Allah waxaan rabnaa iyadoo waraaqa ah inaanu la wadaagno sababtoo maadaama waqtiguna ina ku yar yahay dadkuna ay muddo meesha fadhiyeen oo waqtigu lacagaysan yahay inta uu yahay waa jaangoynay inuu 11 xubnood noqdo baan insha Allah Abdullaahi Kariim jecel lahay siday annaga aanu qorsheynay ama aanu guddigayagu u codeeyeen waxa la soo jeediyay 7 waxa la soo jeediyay 5 waxa la soo jeediyay 15 sida bannaan qodobada halka ku aragtaan waxaan ku kala baxnaa cod marka waxa uu codbatay in 11 xubnood ay noqdaan ba 13 qof u codeysay marka waxaan u qaadanay in 11 ka xubnood uu noqdo sida uu ku imanayo taladeeda maanta meesha waxyaalaha aanu inay ku yeernay ka mid tahay laakiin qorshahan annaga aanu qaadanay baa jiro 11 xubnood inay soo magacaabaan guddigu haddii shirka aanu hadda aynu u fadhina nalala qaato waxa noo qorshaysan ama aanu meel marinay ama qoraalka noogu jira inaanu 11 ka xubnood guddigu soo magacaabo jadwalka doorashadu hadda waa noo qoran yahay laakiin dad wax soo dhameystay baan noqonaynaa kolba doorashadu maalin bay qaadanaysaa waqtiga ay furmayso insha Allah Abdullaahi Kariim aan ka hor dhacno ma rabno laakiin waxay xirmaysaa 6da maqribnimo insha Allah 6 ilaa 9 kana codtirinta noqonaysa 9 kana waxa lagu dhawaaqaya hadii Ilaahay yiraahdo natiijada codka waxay noqonaysaa insha Allah doorashadu maalinta ay dhacayso sidaan u qorsheynay 13 bisha October oo maalin axada waa loo weekandi sabtidu dadku iska umuraysan maalinta axada bisha October 13keeda dib baanu su'aasha oo kale kaga darnay sababtoo waxyaalaha aanu cuskanayna waxa kamid ah ma jirin doorashooyin baa soo dhacay doorashooyinkii dhacay waqti raaca ama dukumeenti oo laga hayaa ma jirin doorasho markaan dadkii wareysanay ama guddigii maalinta ku jiray walaalaheen khayr Allah siiyo Xuseen iyo Ifraax iyo guddigii hore doorashooyinka waxay qaateen qodobka ah hal dheeri wali waa su'aalaha aanu rabnaa sida looga fakarayo hadii laba musharax ama saddex musharax isku cod noqdaan hadda waxa warqadeena ku cad in cod dheeri lagu kala baxayo
laakiin waa talooyinka aan rabno inaanu insha Allah billahi kariin ururino oo aanu maanta rabnaa inaanu meesha insha Allah ka dhaxno laakiin doorashadu waa codeeri waana maalintaas marka insha Allah sida dambe lagu kala baxayo dib baynu insha Allah markay talada aanu qaadanaano ka soo sheegayna community-gan Burukis wax badan baa la isku eedeeyay dadkii soo maray waxaan inii cadaynaynaa meel kasta markaanu eegnay ama maanta gudoomiyaha inala jooga in hor fadhiya community Burukis oo magac leh oo diiwaan gashan oo dawladda Alberta ama dawladda Canada ka diiwaan gashan ma jiro nimanka la yiraahdo Suudaan oo laba dal maanta kala South Sudan iyo Nooradka waxay dhisteen community intaynu inagu ishaysanay nimanka la yiraahdo Eritreanka nimanka la yiraahdo Filibiinta nimanka la yiraahdo maanta Etoobiyaanka hawshoodii hadda socotaa baan malaynayaa wiigan ay hawshoodii ay ku guda jiraan intaasi waynu ka wada horeynay markaynu dadaalka iyo waqtiga aynu galinaynay nasiib darro inaga wax inoo hirgalay ma jiraan laakiin walaalay community-da kale ee meesha laga hirgaliyay kulligood maanta magacyay leeyihiin waa diiwaan gashayihiin qaybtood dalka dawladda Canada way aqoonsan tahay budgetka iyo miisaaniyadiina way u fasaxday waxa laga yaabaa community-da hadda ay leenahay waa la dhisay inaan 40 qof magaalada ka joogin qaybtood oo waxay leeyihiin qaybtood waa gaalo iyo muslim sida Suudaan oo kale Suudaan waxay ku midaysan tahay ama xagga ha joogto ama gaal ha ahaato ama muslim ha ahaato inay community reer Burukis ay dhistaan inaga oo dad walaalo ah oo isku diin ah oo dadka waxa la yiraahdaa jaaliyada labaad ee ugu badan ee Burukis ama garantiga baynu ka midna inaga nooca ah inaan magaceena la aqoon waa nasiib daraynu leenahay cidna ku eedayn meeno laakiin maanta inuu wada joognaa maanta wixii laga bilaabo wixii aynu qabsanaa wax inoo ah waxaan marka ugu hore u mahadnaqayaa cid kastoo isku dayday in ay sameeyaan ama ay ka shaqeeyaan danaha bulshada ee deegaankan aan ku noolahay ilaahayna keenay inagoo ka nimidnay meel kastoo ay Soomaali ku nooshahay markaan halkan ku kulannana danteenu waa halkii uun waliba inagoo ah wakiilo waddankeennii ama bulshadeennii aan ka nimid ee danyartahayd inaan isku tiirsanaanno oo wax ku wada qabsanaay ahayd maamulkii soo jiray ilaa hadda lagama hayo wax dukumentisa ama ay ka tageen oo ah inay jaaliyad magaceedu inoo hirgashay ayna jirin sida ay guddigu inoo caddeeyeen wax dukumentisa oo laga raacsaacana aanu jirin run ahaantii inagoo intaasoo dhan soo dadaalaynay soo dooranaynay soo bedelaynay inaan maanta xabad dukumentisa oo aan tix raacno aynu ku weyno waa yandarrada ummadda Soomaaliyeed haysata waxaan si kaga gudbaynaa war wixii tagay tiigsimaad male oo uu tagay waxaas maanta iyo dan inaynu walaalihiin isku istaagay ama maaragtay iyagoo isku xilqaamay inay documents iyo maaragtay hirgelin doorasho labadaba inoo qabtaan jasaakumullahu khayran maanu leenahay hawsha hadiya habeenba soo jeedeen ee aad hirgeliseen inaad doorashada ku qabataan innagana waxaa laynooga baahan yahay maadaama hanay ummad bulsho badan oo maaragtay mujtamac badan ah inaynu taageeradeena u muujino maal iyo muruqba inaan adeecno awaamirtooda inaan dhaqaalaheena aan ku kasbano inaan jaaliyadeena lugaha ku istaajino oo ay dib u noqon sidii kuwii hore qodob kale ay raaco qoladan qabanqaabadu waxay leeyihiin guddigan kale oo la dooranayo annaga soo magacaabayno daanu sharciyad sinasa garanay inay gudoomiyahana soo magacaabdaan haddii ay leeyihiin guddi baan soo magacaabanna may gudoomiyahana de iska soo magacaabaanba taana waxay la tahay inay sharciyad u ogolay ayan jirin waa iyagu yihiin qolada qabanaysa doorashada taasi waa taa qodob kale ay raaca oo ah arrimahan la leeyahay October iyo waxba la qaban doona dee taasi dadka waa ku fogta
كل هداد بهاشن عود يدينكان هلين بس كتشوبتين هداد صومالي وحو قبانيسان ما تسوقوا في ساعة حلقا كدو دي قبطان doorashada horta dhammaan dadku waa mahadsanyiin ka soo qayb galay waxa leedihiin un baan halkan lagu hayaa laakiin waxa in lagu diin mahad celiyo ku mudan yihiin dadka yimi intan in 10 jeer ka badan ba awood wadeen halkan timaado Brooks joogta marka intii timaaday in la yiraahdo waa mahadsantiin xaq baa u leedihiin waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo guddiga isa soo xilqaantay oo hawshan soo qaban qaabisay marar badan baan u shaqadan oo kale ka soo shaqeeyay horta hawshay hayaan baan garanayaa waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin dadaalka aad samayseen waayo qofku markuu wax badan xoogaal u yahay su'aalo badan buu ka dharagsan hadda waxaan arkayay la weydiinaya nimankan 400 musharaxiinta maxaa lagu qabanayaa marka waxaan hadda qalab la fadhiyo meesha la fadhiyo xitaa waa qarash marka waxaan u malaynayaa jawaabta kulliyada un baa laga sugayay marka horta in la yiraahdo waa mahadsantiin xaq u leeyihiin hal mid oo أنا نقول إذا ربنا عن كدر واحد تهاي أو كومنتيا ده واحد واركين إن لو يدين يمحي إذن لا تهاي إذن كانوا فكرة يقولون يسين مركزيان هذه فكرة كواحد قدر صدنا وحلاق عادن مدواقع بمختار كسر قرية جددوا يجوا كوب يلا بعتنا هذه أي قضاء بدن عن هالك كقران أي أوامر بدن كبحيان وقاركود أنا ما يعني قدومي على دورين وقاعد كارين سيدا صدر كسدحات بيت كوجسر هي أو أتراهدين saddex bilood gudahood waa inaad ku diiwaan geliso community-ga marka soo diiwaan gelin karo saddex bilood dawladda say u aqbalaysaa ma sida ma garanay aad u qoraysaan lama faahfaahin marka taa waxaan odhan lahaa wixii kaleba haddaad wax ka qabataan in gudoomiyaha loo dhaafo dadka uu magacaabanayo aad tiraahdo annaga iyagana u magacaabayna taas waa fikirkayga aniga aan hadda ku darsanayo waayo qofku marka shaqo loo dirayo dadku la shaqayn karo waxa laga yaabaa inuu isagu yaqaano idinkuna waajibaad ku leedihiin qura inaad u sheegtaan laakiin wixii la shaqayn karo isagu magacaabo haddii ay noqoto in loo keeno 10 qof 12 isagu 12 ku yahay oo uu san garanayn oo haddana aan loogu darin qofkii la shaqayn waayay marqadaha kuma arkin qofkii la shaqayn waayay ayaa hadhow shaqada ka faayiraya ilaa dadku hadday intay shaqada ka qayb galaan haddana shaqayn waayaan waxay u baahan tahay in la isweydiiyo ama qaarkood ay maxay ahayd khaladaad sameeyaan qofku markuu community yahay waa inuu calaamado uu dadka kaga duwan yahay leeyahay marka hadduu soo community ka magaca community-ga Soomaalida dhexdeeda wax ku xumeeyo yaa ka saari kara xubinnimada marka taana waxaan rabaa hadii alla idmeena noodka ku darsataan markii ugu horeysay ninka hadlay ku digaa wuxuu yiri yaan arrin quusa la tilmaamin oo marna la quusan أنا مركز هالك المان ورنا يايو كودي هرو هذا يوسف بين جلتش وجينا معك هو قاتين وحنسوي كذا هو هذا مشرحين تقول لقى يابين فرديان إن في يجان قاتين بوجه كذا إن تربع لبا كوميونتي بعنا وحكة دورت وجودي جرو كله وجود شري كوميونتي جرنيك الله دورته الصومالي جا مركز الله دورته وحويجي هاي نصندت كوباهن tusaalahan hadaan ku dhiirado ilaa waxaan wada leenahay dadku waa ehelku hadduu sida ehelka u wada hadlin oo sida xididka wada hadla waxba ka halaaba tusaalahan community-gii hore oo Yuusuf ku horeeyay markaan dooranay xafiiska ugu horeeyay uu furto magaciisa iyo kaawowgii baa ku qoraa community-nimo markaa uma ekayn xafiisni furtay buu ekaa Yuusufna hadda ma xamaraya xafiiska ugu horeeyay ku arko magaciisa ugu qorna marka dadku meesha wax ka halaaban waxay tahay community-ga ninka loo dhiibaana wuxuu ekaadaa dadka inuu san u baahnayn dadkuna waxay u ekaadaan community-na u baahnayn oo isna lama shaqeeyo marka halkaas wax ku lumaa labada meeloodba wixii dhaliil iyo talo iyo canaan annaga meesha u soo fariisanay marka diyaar u nahay waxba raali gelin ama ka raali ahaada ama waa ku mahadsantiin inaad noo sheegtaan wax walba oo dhaliila ama wax walba ay isleediin waa qalloociyeen waa waxaan ummadda ugu yeernay oo aan u leenahay talahana la siiyo marka taa annaga diyaar u ah marka koowaad marka labaad walaalka su'aasha weydiiyay ahayd su'aal horta marka koowaad su'aal qaldan ma jirto su'aal kasta oo la weydiiyo waa ka jawaabaynaa taan ka jawaabi weynana ma garanayna ee nagala taliya idan leenahay hadduu ilaa yiraahdo marka walaalka su'aasha uu weydiiyay ahayd lacagta 400 waxaan ka soo qaadanay markaan tala ururinta sameynay oo dadka wareysanay inay gudiyadii hore
maamuladii hore la dhisi jiray saasoo kale ahaa jirtay mararka qaarna lacagtaas aan sheegnay dood badanaa la geliyey guddiga dhexdiisa ayagoo soo xooraansaday oo dadka soo wareystay lambaro badan oo maarata lacagaha la isku keenay markii dambe halkaasay timid in 400 la yiraahdo maxaa lagu qabanayaa waxaa lagu qabanayaa howlahaas walaalkii keesa sheegay khayr Allah siiyo howl kastoo la qabta qarash ay u baahan tahay waxaan u kaashanaynaa qarashkaas doorashadaas la qabanayo howlaha waraaqaha la daabacayo howlahaas loo kaashan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo guddiga xeerarkiisa waxaa kaloo ka mid ah lacag kasta oo la ururiyo ama annaga aan jeebkeenna iska aruurin oo guddigu ha soo ururiyo ama cid kale ha noogu tabarucdo ama murashaxiinta ha laga qaado lacag kasta oo la ururiyo hadduu Ilaahay yiraahdo maalinka doorashada dhamaato gudoomiyaha nambarkeeda sheegi doono wax walba oo jeebkeenna ku harana waxaan ku wareejin doonaa maamulka la doortay saan hadaayada sheegnana markaan taa ku wareejin haday wax nooga haran haddii diinna la ku yeesho annagaa diinta bixinayn annagaa iska bixinayn guddigaa bixinaya haddii marka maamulka la doorto hadduu Ilaahay yiraahdana annagoo bulshadaas magaalada ula siman haddana waxaan ku ballannay oon diyaar u nahay inaan garab taagnaano oon qaaraan bilaasii aruurino marka lacagtu waxay tahay waa macnaha jeebkaaga ka qaad jeebkaaga ku rid waayo waa lacag ummadaas wax loogu qabanayo qofkii soo istaagana waxaan isleeyahay inuu yahay qofka ugu mudan oo ay tahay inuu wax ku daro marka hore sida annaguba hadda aan ugu soo istaagnay oon leenahay marka hore marka jeebkiina iska wada marka lacagtu horta waa taasaa talabaad kiise iyo hadalkii mukhtaarba ku jirtay walaalkii kiisena uu ka dhawaajiyey oo ahayd guddiga marjaca waxaan u malayaa in wax yar maaragtay ay meeshaas isdhex gashay oo aan annagu kala caddaynin waa idinka raali gelinayaa waa kala madax bannaan yihiin guddiga marjicu ujeeddadiisu waxay tahay odayaal iyo maaragtay rag iyo dumar dad waxgarad ah oo dadka magaalada laga yaqaana ah oo ummadoo dhan wax laga weydiin doono culummo iyo maxaa la yiraahdaa aqoon-yahan isugu jira dadkana lagala tashan doono dadkaasaa marjac noqonaya maamulka fulinta kama mid aha qofka la doorto oo gudoomiyaha noqdo asagaa maamulkiisa soo dhisanaya sida maamulkiisa u dhisaayo iyo xubnaha ay ka koobnaan doonto gudoomiye ku-xigeen maaliyad arrimo bulsho waxay ku qoran tahay baylowga waxay ku qoran tahay oo Alberta standardkaasaan raacaynaa qofka arrimahan ka doodnay ka mid ahayd qofku si uu u shaqeeyo waa sax sida walaalkii kiisa uu sheegay qofku sidoo u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay inuu dadkii la shaqeyn lahaa asaga uu keensado arrimaha marka hore aan ka doodnay oo wax iska weydiinay kamid ahayd marka qofku asaga u madax bannaan cidda la shaqeyn lahayd inuu soo dhiso oo maamulkiisa soo sameeyo guddigan marjicu waa guddi kale oo xeer beegti oo kaleeto ama golo guurti ama baarlamaan oo kaleeto in ay markii wax qaldamaan inuu yiraahdo halkaanay wax ka qaldameen eesaan hala toosiyo intaasaa loogu talagalay ee guddi maamul maaha marka koobaad marka xiga waxay la tahay waxaan dhisanaynaa waa community Soomaaliyeed oo annagu leenahay oo dhaqaaqa oo socda waxa isweydiin mudan maxaa wax nooga halaabeen wixii hore waa halaabeen ayu halaabeen iyo inaan daba galno ma wax aan sideedaba nooga halaabeen nin inta la doorto meeshii la doorto looga tago bartii la doorto looga tago oo waxba laga soo qaadin oo meeshaas adowna asagii la eedeeyay leer tug dhala weey wallahi billaah meelo socdo dadku lacag ka goranay caradu socdo marka intaan isxama lahayn oo iscaayi lahayn community-ga shakhsi ma laha ninkii la doortana waa adeegi ha ogaada hadeerba hadduu meesha fadhiyo hadduu maqan yahay waa adeega ummadeed ummadda waxaa la rabaa inaan walaalayaal geesaha qabsanno oo aan oday iyo dhalinyaro iyo hooyo iyo aqoon-yahan in la garab istaago oo aan wax dhisanno si aan magac iyo masab ku gaarino inaan wax dhisanno waxaasu qarashay rabaan dhaqaalay rabaan aqligay rabaan tala bixinay rabaan cid walba oo bulshada waxgalka ana in lala tashado oo taladeeda wax ku socdaan weey qof sidiisa asagu kaligiis ka murdaqleeyo iska socdaay bulsho ma dhaqo bulshada waa lala tashtaa waa lala maaragtay macaamila ayaduna waa inay diyaar u tahay oo ummad wax dhisanaysa waxooda leh ilaa shalaysa ay noqoto walaalayaal su'aalaha idin weydiinaya wax ma dhisanaa oo wax ma mada ilaashanaa oo annagu waa soo jeedin waa naa go'antahay sidiina kale intiina kale joogtay inta maqan waa maqan yihiin intiina kale diyaar ma u tihiin wax dhisano saasaan isku ognahay aan wax wada dhisanno aan wax wada ilaashanno wax aan wada leenahay
oo aan ilaashanno oo hareeraha ka istaagno oo aan magacooda iyo masabkooda iyo dhaqaalahoodana hurno aan meel gaarsiino magaceenna waa meel kasta jaaliyad kastoo soomaaliyeed edmonton ay ka buuxdaa kalgariya ka buuxdaa waa la tegaynaa si wax noogu hirgeli lahayn waa dabagelaynaa kulligeen inaan heegan u noqonno dhaqaalo u hurno maskax iyo aqli u hurno aqoon u hurno waqti u hurnaa loo baahan yahay intaas jaaliyad soomaaliyeed annagoo ah oo aan magac lahayn oon dowlad ka diiwaangaysanayn kuma noolaa karno imisaa baagamuuddaha guryaha fadhisa shaqada GBS waa laga faa'iidaa qof lama qoro waan ognahay runta markaan idiin sheego hadda ka hor guddoomiyaha intaanaan u imaan ka hor iyadoo meeshaan gabdho inta khayr laa siiyey inta lacaga iska aruursadeen meeshaan xaflad ku dhigteen oo maaragtay iiday ilmaha ku cayaarsiinayaan GBS waxaan arkaa dadka 5-6 qofood 7 qofood loo yeero Soomaaliya markii loo yeero waxa la leeyahay hay-adiga markii la arkay Soomaaliya adiga xayir lama jooge hor u baxalay wala soo waca hadii oo yimaadeen wixii kale meesha Eritrean iyo ummadda madax madooba kale iyo bax madaxadba waxa kala la qoraa waa la dalaabiyaa iyaga kulay duruubtaasna waxbaan ku leenahay annagu dambiye aan dhiganay oo meesha faraha naga yaala sidii aan annagu maryaheena u daahirsan lahayn oo bulshada aan ula mid noqon lahayn oo isaga diiwaan gelinayn dowladaha iyo adduunka ee shaqay nooga baahan tahay shaqadaasna eed laguma qaban karo waa inaan iska rab istaagnaa waa inaan magac iyo manaafic iyo xoolo wax walba aan la diyaarno nimankaas soo dadaalay oo odayaasha oo isxilqaamay oo waqtigooda geliyay oo dhaqaalahooda ku bixiyeen aad baan uga mahadnaq Ilaahay ajr iyo xasanaad hayda ka siiyo taa kadib walaalayaal waxaanu nahay ummad burburtay dalkeena 30 sano burbursay ummadina waa la burburtay maantay anagoo inta wadanka deganaan dadka ugu badan ee degan Brooks haddana aan diiwaan gashanayn oo leeyahay dawladda xataa wax yihiin ma oga waa meelayna anagu isrignay arrintaasi tahay dadka ugu badan cashuurta laga qaado wax bixiya haddana aan diiwaan gashanayn waa arrin dhibaatadeeda leh laakiin caanadaatay dabadooda la qabay baa leeyahay hawsha waa in loo istaago laga wada shaqeeyo laga wada taliyo la isugu tanasulo la isugu tabarruco la isugu dulqaato waxa weeye walaalayaal kullay hal mid baynu isugu imanay dhan baynu u wada soconaa ma kala soconay hal baynu nahay waxa qurux badan sida halaanu nahay dad Soomaaliyeed oo masablo oo macnaha waxaynu nahay adduunka sida Maxamed Tawakkal ka dhawaajiyay maxaan ku dhamaa maskax iyo maan iyo ficil iyo fikrad bala baynu nahay dadka dad u horeeyo oo waxaan ku yiri maxaan ku dhadaa nasabnimo iyo wanaag iyo dadnimo isku xiriirayaynu nahay ma kala goonay halkay 10 qof oo Soomaaliyeed joogto dadka waynu ka muuqanaa haddana muuqaalkeenni waxa hoos u dhigay marley waxay tahay inaynu nahay dad kullay xidid kale inagu qofleen xididka in laynaga jiido mooyaan caafimaad ma inaanu malaynaya xididkaasi wuxuu yahay halka markaynu ka baxno qofka hadlay talow uu yahay rebel buu ahaa ana calaawi ku yaalkana dhaafi marka waxa qurux badan inaynu taa dhaafno oo inuu halkaan u soconayo hayaankeenna iyo dadnimadeena aan gaadhno waxa weeye dad walaala oo aan kala tagi karin baynu nahay wax kasta oo dhacay wax kasta oo isku sameeyno iyo Soomaali wax kasta oo ay tahay kala tagi mayno meel qurayno nahay ehel baynu nahay abaynu nahay wax kasta aan wadaagna diinta maxaan ku dad qurahay 100 maxaan ku dhadaa muslimiina baynu nahay waxa weeye halkan Brooks ee aan joogno dadka ugu badan baan nahay muuqaal ahaan ee ka dhex muuqan kara bulshada mana muuqano maanta hoos baynu naalaa waxay noo dhigayna waa fikradeena iyo maxaan ku dhadaa de kullay wax hoos inoo jiidan waxa cagahayna haysta ilaahayna waxaan ka baryaynaa horta ilaahay waxa inuu naga saaro marka hadii ilaahay waxa idin ka saaro waxaan u maleynayaa inaan dadka horeeyaan nahay kullay aniga mid maskax ahaantayda waxa la yiraahdaa ma taqaana aniga oo Soomaaliya baan idhaahdaa Soomaaliya saan u leeyahay Soomaali waxaan rabaa inay hal mid ahaato oo dad mid oo walaala ahaano oo dhan wada hayaano oo inaan kala hayaamin waxa weeye ilmaynu leenahay saaka mid madrasada ma qabno ilmaynu mid madrasada ma qabaan guryahay dhex fadhiyaan qaar kood baa siday banaanka u taagan yihiin isagoo laba jira asagoo daroobis iyo balaafka ku haysta la arkay oo aan dhan u socday dhan kale aad garanay waalid waxa jira labadii waalid maxaan ku midkoodna guriga fadhiyo midkoodna u shaqeynaa haday doonaan wada jooga oo guriga aanan shaqeynin
oo ilmihii bannaanka markuu u baxo uu ilmo kale yahay oo aanan maxaan ku dhahaa cid dabaalaysa iyo cid maxaan ku dhahaa dee ogbi hayna jirin iskuulka markuu tago ilmihii waxaad arkaysaa dee iska nuuc kala ah waxay naga dhigay kubiti la'aan waxay naga dhigay malala'aan waxay naga dhigay masiir la'aan marka waxaa weeye walaalahayow haddii aan kubiti dooranno in kubitigu ma aha macnaheedu ma aha inuu maxaan ku qofkan la doortay aw isagu tukaan uu leeyahay iibinayo dantaadu haya la shaqee daba soco wuxuu kugu filan yahay wuxuu kugu maqan yahay raadcad Soomaalidu waxay tiraahdaa qabyaaladda la iska daayo qabyaaladdu way xun tahay isku dambaynu nahay haddaynu doonno 10 walaala aynu dooranno waxay noo qabtaan hadhowna waxa hoostaas laga wadaa oo la yiraahdaa looma dhamma annaga guddida cid inooguma jirin reeraha ka maqan rag badan oo aanu saaxiibanahay hadda waxay dhaheen guddida dhinac bay ka raran tahay oo laba reer kaliya weeye marka waxaan oran lahaa guddiyey bal arrimahan hoos u eega waxaynu dhisanayno iyo nin aynu dhisayno baynu xoogaa ku mashquulnay baahidayna haysa iyo dantaynu meeshan ka leenahay waxaan moodaa inaan la gudagelin waxaan rajaynayaa odayaasha dib isu dhigaya inay hore yimaadaan oo talada iyo tusaale wixii la rabo ay bixiyaan walaalayaal horta waxaanu u kacnay maanta ma rabno wax yacyocooda inaanu ka tagno waxaanu u kacnay oo aanu waqti gelinay oo aanu rabnaa inaanu waqti gelino wax dhammaystiran waxaan maanta inay ballan qaadeenna anigoo guddiga afkooda ku hadlaya community-ga la dhisi doono muddo 1 sano ah meesha uu ku shaqaynayo inaan anagu ballan qaadeenno waxaan ballan qaadeenna qalabkii uu ku shaqayn lahaa barkii hadda inaanu qayb ka haysanno insha Allah bidillaahi kariim waxaan marka rabnaa walaalayaal baahi aynu ina wada haysabaa jirta runtii indhaha la iska tiraayo dad islaam baynu nahay waxa moodaa ilaahay halkan markuu ina keenay xigmad buu ka lahaa wada gaala la ina keenay maxaynu ku soo kordhinay masaajidkeenu hadda cibaadada u tagno dad baahin disay waxa laga yaabaa muslimiintii maalinta masaajidka distay inteena caawa halka fadhidaan inay ka yaraayeen maanta meesha lagu najaxay ee wiilka wiil iska dhaxlayo bay ka tageen inagu maxaynu qaban karnaa waxayna qaban karin ma jirto laakiin waxa moodaa xogaa inaynu istibdhigaan walaalay waa ogtihiin magaalada aynu joognaa xabaale islaan ma leh iskuul islaami iskuula ma leh waxaynu waxa oo dhan ku heli karnaa midnimadeenna iyo wadajirkeenna haddaynu inagu midnimo iyo wadajir helno waxaynu ka gudbi karnaa wax kasta oo caqabada oo ina ka hor yimaada waxyaalahaanu hadda daraasayna waxa ka mid ah maxay wax u hirgeli waayeen 3 jeer 4 jeer baa la tijaabiyey waxa soo baxay 2 caqabado tan koowaad waxay ahayd community-da magaalada ka jiray way tirsanaayeen culays bay ku hayeen inaanay community kale ka dhismin magaalada tan nasiib wanaag arinta waa la qarxiyay sababtoo ah niman Filibiin la yiraahdaa wax dhistay Suudaan baa wax dhisatay Eritrean baa wax dhistay Oromo hadda wax dhisatay Eritrean baa hadda wax dhisanaya maanta inagina Soomaali bayna caqabadaasi waxa moodaa inay gudubtay horta niyada moralka iyo khayr loo sheego tan labaad waxay ahayd dhaqaale waxaanu culays saarnay si community-ga dhismaya oo bal xafiiska wan halka sano ugu horeysa uu heli lahaa inaanu culayska qofka la dhisi doono maanta garan meeno qof aanu dusha ku sidanaana ma jirno qof aanu soo saari karnaana ma jirno marka caqabada dhaqaale sidii looga gudbi lahaa inaanu anagu culayska iska bilaawno iyo cidii ilaahay aanu la kaashano aanu anagu horta balko culayska iska bilawno si looga raysto meeshii lagu shaqayn lahaa loo helo waxaan rajaynayaa waxa inuu maanta waxa walaalkay su'aasha wadi wax ma laga qaadi karaa su'aal yaan la isku khaldin dhismaha community-ga dhismi doona cidda la shaqaynaysa xubnaha la shaqayn doona isaga u madax banaan isaga dhisanaya de la hadaliyo su'aal la dhiibay oo la hadaliyo guddida hadasho shacabkii shacab weynaha ama community shirka loo qabanayay hadle mid waxaan oranayaa dadka shacabka waxaan oran lahaa waxaynu u baahannahay oo maanta baahideena inoogu weyni tilmaan mid leh
ama maxaa la yidhaah su'aalo badan muujinaysa ama u baahan in meelo badan la iska taago maaha markaan sidaa leeyahay waxaan uga jeedaa baahideennu waa community ma dhisannaa communityga baahidu wuxuu baahi tiri doono ama wuxuu qaban karo ama wuxuu qabanayona intiinaas waad garanaysaan oo community muxuu qabanayaa cid oranaysaa ma jirto maanta war waxaa baahideenna oo inuu dhulka u naallo waynaan dad ula mid ahayn oo tilmaamihii badnaa haddeer gabadhii inaga horraysay halkan ka tilmaamaysay khayr allaha siiye ay ka bixinaysay waxaana laynagu soo leexinaya war ragow layna lahaa arrinkaas midnimadiisa iyo diyaargarowgiisa dad islaam baynu nahay dad soomaaliya wada nool baynu nahay dad isu baahan baynu nahay dad isu damqanayo isu jir damqanayaynu nahay keenna xidhan waxaa laga yaabaa inaynu isu wada gacan marino war hebel baa maanta xidhan inaynu dhahaanu dhiraahno innagu aan community ahayn haddaynu community u leenahay rabbigayna la kaashanno gaalada islaamba waa jiiraynaa waan ka adagnahay laakiin haddaynu sidaa u kala daadsan u kala yaacsannahay hoggaanno yeelan mayno mowqif wanaagsan iyo midnimana yeelan mayno waxaan u meenayaa waxaan aan u taagannahay waa jaalaydii lixaad in la asaas kuwo badan iga horreeyey kuwaa soomaalidu isdooranaya waa ismagacaabanayeen halkii lagaga tegey marka waxba lama samaynin ayagaa iscaawinayay ayagaa wax istarayay ayagaa isla ordayay laakiin xagga dowladda waxba kama duwangashnaan oo magac meel ma jirin markii lay doortay yaan isku daynay aniga iyo niman odayaal markaa la shaqaynayay walow guddiga doorashada nimankan ka horreeya shaqada fiican soo qabtay aad badantii maalin joogin hawshii waxaad wataan iyo wanaaga ku jira maalinkii lay doortay galabkii ay kala tageen laftooda isdagaaleen maalinkii kala tageen marka waxay qabtaan iska midaaya gadaashay marka waxaan sameynay or qof yaanan si hoos ila shaqaynayay qaarkood maanta meesha joogada ka tegey meelaan kareeyey oo kombyuutar aan lahayn meesha geeyey kadib waxaan bilaabay inaan duubaangeliyo oo wixii aan Edmonton u diro ay soo noqdaan haddana aan celiyo nimanka dir laga sheegay haddana aan ku daalin badan kadib haddana COVID-19 aan dhacay intaa waa iscaawinayno laakiin magaca Soomaaliya duubaangesheed oo meel wax ku ool ah ama wax iskiis u qabsan kara ma jirin aynu markay aan soo wacay ciidii ka hor yaan waxaan damacnay in aan sidaas ka bedel waxaan u qabo aniga marka rag ilaahay waxaan ku dhahay Soomaalida eedaan ugu badan waxa uu basugno waxaan sameeyay waan haleynaa bal sidaas ka dib waxaan u qabano aan xog wareysana hadii kale inaan duubaangelino markaan duubaangelino aan magacaas keenno magacooda dhammaystiran Soomaaliya soo yeerno aan dhahno Soomaaliya magaciina waa ka halo tashto tii marka waa laga kala badiyay maysan noqon waxay noqotay in guddigan si aan isku magacaabay isxilqaamay aqlabiyada Soomaaliya magaalada joogtay helay hawshan wanaagsan soo qabteen marka waxaan rabaa waxa weeyaan ku daalin inaan isdhahno waa dibkanahay waan naqaanaa baahida waan garanaynaa haddana ma doonayno baahida aan ka sheekeeyay waxaan leeyahay waana wax jira marka hadda kadib doorasho diyaar u nahay aan doorasho gudoomiye cusub odayaal la shaqeynaya maamulka gudoomiyaha la shaqeynaya inta inaan sameynaan diyaar u nahay laakiin waxa aniga ku soo jabay oo marqaati aan u ahay aan ka sheekeynayo mid la mid aysan noqon haddii la rabo Soomaalida waxay qabsato way qabsan kartaa